hoolka jaamacadda Camuud maanta waxa uu dhaafiyay kuna kulmay ardaydii ugu tirada badneed ee ah ardayda cusub ee loo yaqaan freshmanka ee sanad waxbarasheedka 2018 iyo 2019 soo gashay jaamacadda Camuud. kulankan ayaa waxa goobjoog ka ah mas'uuliyiinta sarsare ee jaamacadda iyo madaxda xafiisyada xudunta u ah jaamacadda waxaana ay dulucdiisu ahayd mid wacyigelin isla markaana diiradda lagu saaray sidii ardayda loogu iftiimin lahaa nidaamka guud ee jaamacaddu ku shaqeyso shuruucda dhinaca waxbarasho iyo xeerka dhinaca anshaxa iyo habdhaqanka wanaagsan. ugu horeyn ayaa waxa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleeban Axmed Guuleed iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan aad iyo aad ku soo dhaweeynaa jaamacadda Camuud oo sida la sheegay hooyadii jaamacadaha buqaadani waa meel barakaysan waa dugsigii ugu horeeyay ee secondary school ah ee Soomaaliland ay lahaatay bariga Ingiriiskii dadka ka baxay madaxweyne saddexdii madaxweyne ee u dambeeyay halkan ay ka baxeen dugsiga sare Camuud secondary school ayuu ahaa oo nimanka jaamacadda u xognay jaamacadda waxaan ku bilownay laba kulliyadood oo Cabdiraxmaan mid ka ahaa ayaa ku bilownay educationka iyo businesska iyo saddex macallin iyo 56 arday maanta ardayda ilaa 5 way dhaaftay alxamdulillah macallimiinta payrollka ku jira mishaarka ku jiray 350 way saddex macallin ku bilowday shaqaalaha jaamacaddu ilaa 500 way noqdaan way yihiin payga la siiyay korriinkaana waxa keenay waa sida graduate kolba soo gal waa 13 kulliyadood oo undergraduate degree hore ah departmentka divisionka freshman ki edgelisaan idinku oo sanad ah iyo iskuulka postgraduate oo in 300 arday ka badan ku jirto oo halkan iyo Hargeysa ka furan marka waxaan idinleeyahay ku soo dhawaada jaamacadda Camuud rag iyo dumar waxa kale ku soo dhaweeyna waxa laga yaabaa maanta inaad u badantiin ardaydii gobolkan Awdal laakiin waxa ku jiraan filaya oo inkastoo salay imtixaanka la sheegay oo ardaydii gobolada kale ee Soomaaliya iyo maanta gobolada kale ay soo socdaan haddana qaar baa jooga. sidoo kale madashaas ayaa waxa ka hadlay dhinka kulliyadda freshmanka iyo Professor Maxamed Maxamuud jaamacad Deeriye oo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa kulliyadda freshman waxaan maxaa ku radaa ujeedadeedu ay tahay in la aasaaso guri lama dhisi karo foundationka laanteed marka jaamacadna marka horeba waxa aasaas u ah freshmanka marka dhammaan sanadka la inaga dhiso basic educationka waxaad dooran kartaan kulliyadda aad u qalantaan ama adigu aad xiiseynayso maskaxdana waxaad ku haysaa laba jeer in la kulmi doono oo la idiin qaban doono kulan noocan oo kale kan maanta soo dhaweyn buu ahaa kulanka ugu horeeya leedin qaban doona wuxuu aanayaa ku disciplineka iyo dhammaan shuruucda jaamacadda la akhriyi doono kolka laga soo bilaabo 1997 ilaa yawmana hada sanad walba waxaan qaadanaa fasal waxaan qaadanaa fresh inaguna freshkii sanadkan aad tihiin waan inuu soo dhaweynayaa qalbiga ayaan inaga soo dhaweynayaa waxaan inagu yeedhnay halkan inaan inaga tusaalayno oo in tusno si aanad marti ugu noqon jaamacadda fasalada aad ka dhiganaysiin meelaha shahaad ka cabaysiin meelaha biyaha ka cabaysiin oo nad meesha dhex socon ee kalaasyada aad ku dhiganayso toos u dhigo toos aad ugu leexato. wixii intaasi ka dambeeyay ayaa waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta kale ee jaamacadda Camuud waxaana ay ardayda cusub ee freshmanka u iftiimiyeen mustaqbalkooda waxaana hadaladoodii ka mid ahaa markaad shahaada Camuud geyso ee tiraado waxa la eegayaa waxa clinic la siiyay weel directorate dad ku jirta khalaas haday ugu batay imtixaan bay ku oranayaan marka halka aqoonsilaanta waxa waa hore ka tagnay jaamacadda Camuud waxaan ka midnahay caalamka ka midnahay jaamacadda carabta ka midnahay waxaan ka midnahay jaamacadda islaamiga ka midnahay jaamacadda Afrika iyo Sahara ee mataqaan Sahara Afrika ayaa ka midnahay meel organizations jaamacadaha caafimaad ku jiraan Camuud ku jiray ma jirto marka isbedelka iyo maxay ahayd horumarka la gaadhay iyo aayaha la iniga tagay halkaasi baad maxay ahayd ka garanaysaan
farxad gaar anigay tahay inaan maxay ahayd ku soo noqdo Amuud oo aan ahaa qoladii horeysay ka baxday markii dambana aan nasiib u helay inaan jaamacadda ka shaqeeyo oo aan macallin ka noqdo waxaan isleeyahay maanta dhalinyaradiina halkan timid ee jaamacadda galaysaay go'aan fiican baad samaysay Sakariya Saxane, Raya TV, Boorama.